Axmed Ducaale Geelle Xaaf uu shalay soo saaray eedayn uu dusha kaga tuuray wasiir iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka waxa uu iska fogeeyay eedaynta uga timid madaxweynaha Galmudug Axmed Maxamed Ibrahim ayaa warkan faahfaahinaya xildhibaan Xuseen Iidow oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya mar uu la hadlay raadiyahan kulmiye ayaa iska fogeeyay eedayn kaga timid madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf kadib markii warqad ka soo baxday madaxtooyada Galmudug lagu sheegay xildhibaano iyo wasiiro uu qayb ka yahay Xuseen Iidow lagu tilmaamay inay duminayaan maamulka Galmudug isla markaana fargelin ay ku hayaan sida la cadeeyay Masar Iidow ayaa sheegay inaysan fargelin ku hayn howlaha maamulka Galmudug balse Xaaf ayuu ku eedeeyay inuu ku hayo shacabka reer Galmudug khalkhalgelin iyadoo ay si dheer tahay buu yiri kala dhantaalida reer Galmudug arinta oo leeyahay Galmudug inuu lagu eedeynayo xildhibaanada dawladda federaalka inay Galmudug halaasaha ka jira madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha ku-xigeenka iyo maamulka intiisa kale oo baarlamaanka qaybsan yahay oo baarlamaanka kala cadaado joogo kuwii cusbaayo jiritaankooda la isku haysto dhuusamareeb joogaano waxaas wax annagana lagu eedeyn kara maaha laakiin qalqalgelinta mujtamaca iyo midnimada dadka reer Galmudug ee madaxweyne Xaaf iyo inta la socota ay hormuudka ka yihiin eed gaara eed laga saari kara ma jirto laakiin dadka ay saameynayso oo shacabka ay matalaan iyo siyaasadda iyo deegaanka iyo dadka horumarka deegaanka la jeclaanahay waana taabanaysaa laakiin si wax burburin ah oo aniga iyo inta ila midaba loogu eedeyn kara ma jirto